Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteeda. Waa in salaam meel walba aad dunida ka joogtiin. Waxaa idin rajeynaa in ay caafimaad qabtiin insha Allah. Waa walaashiin Cabdiraxmaan oo maanta video cusub idin wada. Videogan maanta ku saabsan yahay asxaabta bariis biryani oo hilib lagu sameeyay. Hilib nooca doontida isticmaali kartaa, ari, geel, digaag xitaa waa isticmaali kartaa, waa caadi. marka ugu horeysa digsiga dabka soo saarana asxaabta. saliida badan kule caafimaadku ma u fiicno, saas darteed aan saliida badan ma jeclin. marka wax yar saliida dabka ku soo saartay 3 qaado kale qaadada cuntada lagu cunayo caadiga 2 xabo basal oo qiyaas ah soo jarjartay, qarfaas sidoo kale ku soo darsaday, iyo waxaa kaloo ku darsanaa caleenta oo bay leaf ka loo yaqaano ama waraq qaar carabi, bay leaf ni English in meesha oo waxa kasoo gaday oo bakaaro oo lagu gado waxyaabaha oo dhirta oo dadka lagu daaweeyo, iyo sidoo kale saliid iyo waxaas dabiiciga lagu gado. xawaaji dhoob shiidan, xawaajiga biryaniga cusbo, maceeye, ituun iyo kabsar oo shiidan waaye. intaan oo saxanka igu jirtana hadda oo ku shubaayo ujeedin. heel ma ku darsanin maxaa yeelay xawaajiga biryaniga waxaa ku jiro dhexdiisa filfil iyo heel, saas darteed heel ma isticmaalin, qarfo leh ku darsada saa ujeedeenba. marka hilibkeega ku soo shubanaa hadda hilib ariya isticmaala ani. marka hilib qiyaasta inta markaas u sameysanaysid familkaaga waaye. hilibka ku soo darsanayna asxaabta. waxaa kaloo ka iloobay ku darsaneynaa huruud cuntada lagu daro maadaama biryani la sameynayo. marka huruudaas ku soo darsaneynaa wax yar oo qaada haafkeeda camal la eg, xitaa qaada haafkeeda uu kasii yaryahay dhigi karnaa. sidoo kale yaanyo sii shiidanaa, yaanyadana caadiga ah ama yaanyo simirsaantii markaas ay heli kartid ku darsanee. muhiimada xitaa yaanyada inaa ku darsano maadaama biryani aan sameysanayno. ila socdo insha Allah. halkan asxaabta isku soo laabanay yaanyadii ku daraa kaas oo soo shiiday. yaanyo caadi waaye. sidoo kale waxaa ku soo darsanaa yogurtka oo liin dhanaan waaye waxaa ku daraayo kadibna waxaa ku darsanaa yogurtka plain-ka ah. plain yacni yogurtka cadaanka ah oo dhanaanka waaye, haafkiisa ku darsanaa. haddaa wax badan sameysanaysid asaga dhan waa ku darsan kartaa, haddaa rabtid xitaa asaga dhan waa ku darsan kartaa, wax uu dhibaayo ma lahan. sidoo kale qaadada oo rubaceeda kale oo shishiid yani shishiid caadiga ah. paprika sidoo kale u baahanahay waa ka caagaas ku imaadaa. paprika caag fara badan ku imaadaa kulli, laakiin aan majmuucadan bayaara haystaa. bayaara caageeda wax walba oo xawaaji soo sameysaa isticmaalaa. marka biyaa ku shubaneynaa ilaa hilibka oo ka qarsoomo, kadibna 1 saac oo kale kadib usoo laabanayna yacni intuu hilibka karaayo bas. kana hilibka marka noo soo bislaaday kadib waxaa ku darsaneynaa asxaabta 2 xabo yar oo baradho iyo xabad karooto oo weyn oo soo jarjartay. haddaa rabtid waa iska dhaafi kartaa baradhada iyo karootada, laakiin haddaa ku darsatidna beelo sii noqonaayo way ku fiicantahay inaad ku darsatid. marka bariiskii soo karineynaa haaf inuu waa soo bisleynayna yani 5 daqiiqo camal soo biyo ku soo karineynaa. yani inuu saaid u bislaadana ma rabno because waxaan rabnaa inay hilibkii iyo bislaashadiisa ku sii dhameystiranto bariiska. marka 5 daqiiqo camal ay soo karkaray heelkii iyo waxaas iska bixinayaa saa ujeedinba. kadibna insha Allah waa arkaysiin wax kale oo sameynayo iyo saa isku darsan doona insha Allah.
basal saliida dib soo saartay basal duwana basashaan waa arki doonaysaa ugu darsanayo waxaa rabaa bariiska kor inaan ugu darsado insha Allah waa isla arki doonaa insha Allah basashaan inay gubato kala laga dhigaa fahamteen hadaartina waa iska dhaafi kartaa oo bedelkiisa loos iyo waxa haysatid sabiib iyo waxyaabahaas waa ku bedelan kartaa hadaartina waa ku darsan kartaa kulli waa basal saliid lagu dubo kaliya marka kaasa asxaabta basashaan waxaa u badan masaarida dadka masaarida aad u jecel basashaan loo gubo bariis xitaa ku karsadaan bariiskood magaciisa waxaa la kashariya dhaan kashari bariis ee ku sameystaan maraa soo gelinaa insha Allah ukun oo biyo ku soo kariyay ku soo dhex darsado 3 xabo dadka xasaasiyada qabo ukunta xasaasiyada khaasatan ku qabo way iska dhaafi karaan hadaartina waa ku soo darsan kartaa insha Allah bariiskeena ku darsanayna kaas waa soo shaandhay bariiska raal noqod hergabka ilaad ugu dambeeyo codka mararka qaar oo igu aamo marka bariiskeena ku darsanayna bas waxa kale oo ku soo darsanayna kalarka cuntada lagu daro saafraan ama saafraan ku soo darsanaa maanta yani kalar saafraan oo kala waay caagu ku imaada kaas isticmaalaan kaas ku soo shubana خلاص بريسكين wax kala noo dhino basasheena hadana u laabanayna say noqoto insha Allah isla arkayna isoo guduudan oo saataas ma kulli markay sas xamal u bedelanto waa kasoo bixinaa saliida kasoo miira kadibna waxa waa bariiska kor ugu darsanayna waa kaas ka bixinaya u jeediyay insha Allah saliida si fiican iskiga miira kadibna kor bariiska kor ugu darsanaa soo jeedin waa daboolanayna bariiskeena marka basasha ku darsano kadibna waxa sameysanaynaa basbaas si diyaarsanayna inta bariis kasta xoogaa biyaha ku reebno ma hoo hilibka intaas inuu ku huuro oo isku bislaada rabnaa insha Allah bariiska inta u dhiman bislaashaha oo isku daboolayna oo soo laabanayna markuu bislaado insha Allah basbaas si sameysanaynaa asxaabta basbaaskeen waa kana xabad yaanyo simirsaan soo jarjartay kabsar 4 xabo basbaas 2 xabo toon meeshas igu jiro waxa kale oo soo darsaday yogurtka haafki iyo haraadaati oo kareeb bariiska iyo sidoo kale waxa soo darsanaa mayonnaise ku soo darsanaa kaas qiyaas inta jeceshay 2 qaad camal in la ega iska qiyaaste ku darsada ani liin sidoo kale liin dhanaan waaye liin caadi dhanaan oo soo miire iyo cusbo ku darsanayna طبعا cusbo la'aan basbaas ma anfacaa waa soo shiidana kadibna saxankii ugu talagalay ku soo shubanaa waa kaas basbaaska ku soo shubtay iyo ketchup waa waxaas kala guduudan oo jeedin ketchup yaayada oo dhalada lagu keeno ama caaka ku imaada ee ilmuhu ketchup waaye bariiska markuu isku huuro waa kana asxaabta qaadada isticmaalaya hoos u gelina inuu qalalay in kala rabaa inaa ogaado woo qalalay ma sha Allah خلاص هذا ما ديارسنينا asxaabta insha Allah videogan maanta inta sunu egehe axrajeyna ina wax yar xitaa ka faa'iideen insha Allah asxaabta waxaan leeyahay soo dhawaad mar walbo asxaabta nagu cusub
janaalka subscribe noo saara videoga hadaa ka heshayna daawaday like noo saar noona share garee qaybtan markii la maraayo ilaahay amarkiisa qosolaa iska qabta asxaabe iska dulqaata marka inta video kala mida aan kasoo gelin doono insha Allah khayr iyo caafimaad idin rajeynaa asxaabta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.